sida ugeed waxaan leenahay haweeneyda muslimka guriga kan si uu u dhisnaan karo wuxuu u baahan yahay gurigeenu inuu u ekaado gurigii jannada ka jiray guriga jannada ka jira haweenta joogta haddii la yidhi waa curuban atraaba tani inta ay matali karto waa inay matashaa wax ceeba markaa ma aha marnaba waxa ilaahay xuralcaynta ku sifeeyey inay gabadha muslimadii ku sifowdo ceeb maaha ma aha ceeb markaynu leenahay waxaan u jeednaa ma aha wax laga khajilo alxayaa qayb ka midi waa madmuum qayb ka midina waa mamduuc waxa sharcigu baneeyay in laga xishooda waa madmuum baylay kuma jirto maxbuubaadka waxa la jecel yahay kuma jirto bal quraanku markuu tilmaamayay ragga iyo haweenka waxa la yidhi uhilla lakum laylata as-siyami ar-rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna wa min aqwali al-mufassirin fi ar-rafath waxa yiraahdaan hadalka markuu qofku caadigu meel ka hadlayo ka khajilo ama si aanu ku dhiiranin inuu yiraahdo guriga se waa la isu mar dhigtaaba wax laga khajila ma yaalaan sadaradeed kalimatu ar-rafath ay culimadu leeyihiin baa loo adeegsaday jimaaca oo muqaddamaadkiisa looga jeedo waxay yiraahdaan gabadh badawiyada reer miyiga ayaa qamiis cas iyo waxbay qaadato xinxinaysatay dabeetana tusbax bay qaadatay baa la yidhaho meel bay fadhiisatay way wartid qolaa waxay ku yidhaahdeen maa bacda haada min haada labadana waddo kale foga inaad cusburato oo maryaa xidhxidhato oo iska dhalaaliso haddana aad wardi meel la fadhiisataa waa laba kale fog bay ku yidhaahdeen markaasaa waxay tidhi bay yidhaahdeen beyt ay leeday ilaahay dhan buu igu leeyahay aanan rabin inaan dayaco dheeldheelkiiyo maradhigadka ninkayga xaggiisana qayb buu igu leeday yana aan la rabin inaan dayaco bay leeday yani labaduba waa bannaan yihiin si awgeed buu nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayh isna wuxuu tilmaamaya xadiiska jaamicu saqiirka ku qoran saxiixa uu albaani ku tilmaamayo alaa ukhbirukum binisaa'ikum min ahli aljanna ma idiin sheegaa buu nebigu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayh haweenkiina ahlu jannada ah sifada koowaad uu nebigu siiyey wuxuu ku sheegay alwaluud alca'uud calaa zawjiha التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول والله لا أذوق غمضا حتى ترضى نبي عليه صلوات الله وسلامه عليه هوانك نكوا أهل الجنة وحويا الودود وهطني كان جعل كبار كسي فوضى جعلك كان أهل الجنة هوانك مسلمات كدنيا الجوجة جنة جلية صفة اللوجه الرئيسية وحكم دينا نقطة محي تجعلني كده ووحدة ليسة وعودة خير يوريقون كده kula noqonaysa ta hadii ay wax dhinto ama iyada la dhibo intay ninkeeda gacanta qabato tiraahda wallahi inaana waxba dhadhamin in la raali noqoto mooyaan hadii xataa iyada la dhibo buu nabigu leeyahay ama se iyadoo ay wax dhibto mar kastaba u taagan inay ninkeeda raali galiso walidalik ayaa Laura Dwayne gabadha la yiraahdo Mareykanka ee leebuugan ay u bixiyeen tarjumadiisa azawja almustaslima waxay tilmaamaysaa way gabadh guursatay dabeetana muddo markay joogeen bay ninkeedii istileen oo iska kala tageen waxay leedahay nooc min feminist groupyada iyo baabkan bay ku soo kortay inay ninka iska dhiciso iska celiso waa kaasi markii dambe waxaan fikiray bay leedo raadiyay maxaan anigu ninkaygii u waayay reerahan jaararkay dadkanina wali xaasaskan isu qabaan dabeetana questionnaire bay qaadato interview bay qaaday interviewgeedii waxa uga soo baxay reer kastoo dhisan inuu yahay reer isu jajaban oo haweentu ay tahay mid ninkeeda jecel oo u jajaban oo waxba ku qabsanin walidalik baa waxay qortay book ay dhaadaan tabcadii koowaad ba 100,000 oo xabaan la qaatay ay u bixisay المرأة المستسلمة استسلمي لزوجك بي بوغا فكرتي سودم وانتا نينكو اللباح بي لهدي هدي aad isku soo taagtana wuu ku cuni hadaadeen u jajabnaatana afkiisaad kala bixi bay leedahay waxa ku jira sida daraadeed jajabni isdhiib bay leedahay wax kasta waa lagu siinayaa hadaad adigu isdhiibto wax kasta waa lagu siinayaa sida daraadeed baa Aisha waxay leedahay nabiga salawaatullaahi wa salaamu calayhi ayaa intaan weel wax ku cabo nabiga ayaan u dhiibaa bay leedahay dabeetana markaan u dhiiba wuxuu eegtaa nabigu halkii aan waan af ka saaray reerkeedu ku yaallo ka daba cabaa nabiga salawaatullaahi wa salaamu calayh yani waa guri reer ku wada nool sadaradeed waxay leedahay weelkii aan wax ku cabay markaa nabiga u dhiibo halkii aan afka ka saaray weelka ayuu nabiguna salawaatullaahi wa salaamu calayhi afka ka saaray waxay leedahay araq waa lafta hilibka waliba marka inta badan laga dhameeyo wax yaroon ku sii hadhareen laf baan feentaayo halka aan ka goostay oo intaan feentaan u dhiiba halkii aan ka goosto isna ka sii feentaa bay leedahay nabigu salawaatullaahi wa salaamu calayh yani Aisha dhaqankan waxay u soo guurinaysaa inay muslimiinta barto nabi Muhammad salawaatullaahi wa salaamu calayhi sidoo dhaqmay waxay tilmaamaysaa guriga sidoo uga dhaqmayna ahayd weelka haweentiisa wax ku cabtay halkay afka ka saartay inuu afka ka saaray waxay tilmaamaysaa iyadoo xayd leh inuu dhabteeda ku tiirsanayo oo ku jiifsanayo habeen
habeenkii picnic baan wada bixi jirnay bay leedahay waa israaci jirnay lintanazzu waa nabi iyo rasuul waliba goorma jooga dhowr iyo konton jira oran anigu oday baan ahay oo dhalinyarada raacda islaamaha anu ma daba galama waa nabi rasuul ah oo dhowr iyo konton jira calayhi salaatu wasalaam oo la socda haweenkiisa tii u daayaray gabadh dhowr iyo 10 jira la socda waa Madiina iyo nabi Muhammad sallallahu wa sallam alayhi oo dhowr iyo konton jira ayaa waxay leedahay picnic baan wada bixi jirnay bale waxaad ka garan kartaa nabigu sallallahu wa sallam alayhi ma qarsanaynin xataa kalgacalka inaga waxa laga yaabaa ninku nin Soomaaliyeed bal ku gabadhaada jacaysh غير معقول waxaasi wax af la soo mariyo way ka weyntahay nabi Muhammad inta saxaabadu yimaadeen bay ilaahay rasuulkiisiyo dadka yaad u jacaysh Aasha buu yiri nabi Muhammad su'aala la weydiiyay dad bayaad u jacaysh oo yiraahdo Aasha markaas ay yiraahdeen ragaan u jeednaa markaas uu yiraahday Abu Bakar idan waxa la rabaa waxa weeyaan in gabadhu ay u muuqato dareensiiso ninkeeda inay jacaysh cagsiga waxa kale la rabaa ninku inuu muujiyo haweentan kalgacliya wanaag inay ku wada joogaan oo jecel yahay maaha aniga tii gurigayga joogtay maraan musraacnay ama aniga iyo yaani hatta inuu yiraahdo reerkaygii ayofka kale warwareegaya marka aniga tii guriga joogtay buu leeyahay asalku laakiin waxa weeyaan nabigu sallallahu wa sallam alayhi intuu guriga soo galo ayuu shaqada guriga wax ka qabanayay oo uu la qabanayay haweentiisa tan bal si uu cawaatifteeda u ilaaliyo haweentiisu jeclaa asxaabteeda ay jeclayd ayuu nabigu hadiyada u diray Aisha waati xadiiska saxiixa ku tilmaamaysay saxiix muslim ku yaalay marka neef la qalaba nabigu wuxuu yiraahdaa Khadija asxaabteedii hilibka wax uga dir hatta Aisha lahayd waligay gabadh kuma hinaasin haweenta dhimatay aanan isa soo gaarin sidaan ugu hinaasay bay leedahay sidoo nabigu jacaylkeeda uu muujisanayay aan uu qarsanaynin inuu jecel yahay ayuu muujisanayay bal asxaabteedii dadkii ay ku xidhnayd inuu jecel yahay